محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها شعبك اللي معنا شرفت له مسؤولين تصرصره دولة ده إذا ماذا قلب كسده بهذا صحافة مرت شرفتك للدول يضمان شعبك الصوماليات ميل كستو أي جوجان waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kalsoonidii uu igu magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 17kii bishan September 2020 ina siiyay fursadan qaaliga ah oo aan maanta idinku hor imid sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh oo ii ogolaaday in aan hortooda imaado maanta si aan u weydiisto codkooda kalsoonida iyagoo matala dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gudaha iyo dibadba mudanayaal marwooyin hawlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu Allah ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxa kamid ah koow arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeegga bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dawlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa lix dib u eegista dastuurka toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro sideed iskaashiga caalamiga ah gabagabadii guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa fursadan taariikhiga ah oo aan idinkaga codsanayo in aad isiisaan codkiina kalsoonida hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo mudanayaal iyo marwooyin waxa iga go'an inaan soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka tarjumaysa baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeena Soomaaliya marxaladan uu dalku ku jirana ka gudbisa gaarsiisa fulisana hanaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay hadduu Allah idmo kadibna markii aad isiisaan kalsoonidiina insha Allah waad mahadsantihiin